wax dhibaato ma u geysan maxaan ahay horta anigi adiga maxaan ahayn xasan adiga maxaa idheereed inaan ka hadlaa rabaa intaas xasan toob iyo aniga waxaan ahayn dad wada shaqeynaya muddo sanad ku dhow durdur media isbedel qurux badan ku soo kordhiyay alxamdulillah adigana shaqadaas inaan awood u lahaada isiisa horta waxaan rabaa marka ugu horeysa inaan ka hadlo aniga waxaan durdur u ahaa durdur cameraman ma u ahayn editor ma u ahayn publisher uma ahayn akoon iyo basweerna shaqadeeda ma ahayn waxaan rabaa ummadda inaan la jahwareerin oo u cadeeyo durdur waxaan aniga u ahaa yaa jabsan kara horta wax sidee loo jabsan karaa intaas waa fahantaa umaleena haddaa daawanayso waa fahantay anigana waa ku fahansanahay cid walbo durdur ka tagto maxaa loogu dhigaa horta qofka waa shaqaysanaa dadaalaa gaaray horumaraa gaaraa ku dhah sax maxaa u diidantahay brada shalay waxay ahayd ismaaciil iyo asaysateen waxay asaysateen abees cali baafo hiiba asaysateen dad badanaa kugu fiirsada adoo ku dhegan brada waa u dulqaadan waaya aniga intaan ka badan inaa dad agteeda kusii dhibaatayso ma fahanti aniga waxaan ahay qof daacad kula shaqeynaya isbedel qurux badan aan kugu soo wajahmay dani markaa kugu soo biiraan laakiin maantay abaalkayga sidaan ka dhigtay kama xumi dad badan abaalkooda lagu dheelaa mid isdhayn ani hasto bay ka qaldan yihiin isdhahay ma fahanti walaalkay awees baafo markii la jukeenay inaa wax badan sheeg ma rabe wara dib u laaba idheeysan nadaamini qorshe kala jiro ani waa fahmi waay laakiin maanta wax walba fahmi ma fahanti horta aniga durdur media xasan toobi aniga waa israaci jirnay waxaan wadanay gaadiid magaalada tagi jirnay muuqaalaha soo duubi jirnay diiwaan shorna lahaan la socon jiray walaalkiis ah isaga editor ahaa isaga cameraman ahaa isaga computerkii hay aniga baabuurka wadi jiray darwala ah sax waa israaci jirnay magaalada meel kasta ha taashinaato waa tagi jirnay sax yaa hari jiray diiwaan shor la hali jiray asaga shaqeyn jiray ciwaanka liidadka anaga ka tashin jirnay sax oo u diri jirnay ciwaan qurux badan ciwaan diyaarsan shaqo qurux badan aan qaban jirnay laakiin dadka masaakiinta ah wax qurxoon ma lagu sameyn jiray ma fahanti ninkan waa abtidoon maanta wuxuu garabkayga u fadhiyay waa dareemi kartaa idinka anigana waa dareemi karaa bulshada idin la way dareemi kartaa waxa ii gelisay magaalada inaan aniga jabsaday durdur media gmailkayga waa lii sameeyay dad badan oo qubuura oo la xiriiray adiga aan la xiriirtay sheegtay in durdur aniga jabsaday waxa uu sheegay in gmailkayga noocaas uu yahay waxa uu sheegay in xaalado badan ay jireen xasan toob waxa ku fakartay nidaamiye intaas uu kula joogaa waxa duubi jirtay muuqaalo aan aniga aad uga xumahay maraba inaan inta ka sheego waxaan rabaa marka ugu horeyso haddana inaan ka hadlo xasan toob aniga waxa ii sheegtay durdur inaan ka mid ahaa ii hanjabtay horta hanjabaad ka hor xasan toob waxa ii sheegtay aniga inaan hadde maal igu bixinayso awoodo inaa iddisho ma fahanti gangiistara ku adeegsanaa dhahday aan maqlaysay maxaan joognay mid ka mid ah saldhigyada muqdisho immigrationka joogday waxaa sheegtay inaa aniga dilayso dhibaato ii geysan karto lacag badan YouTube ka shaqeysa tolaa leeyahay dadaa ka dhashay haddana dadaana daawanaayo kuwaasoo noo dhexdhexaadin doona aniga adiga durdur waxaa ka tagay habeen waxaan duubnay muuqaal $1,000 oo tusma film soo gaarsiisay durdur media Allah ku barkeeyo baraad maanta ama umada waxa uu qabo ama waxa uu qaban adig ku taala laakiin waxa rabaa inaan ka hadlo aniga
wixii nafsiyan shakhsiyan dadaalkayga hawsheeda guusheeda meeshaas aniga ka tirsanaa mushaaraan ka qaadanaa intaas rabaa inaan ka hadlo wixii personalkaaga adiga ku taala adii ilaahaga iyo dadka kula shaqeeya inay taala ma fahanti umada waxaan u cadeynayaa mar kale in la soo wacay aniga horta wicitaankayga ka hor 6 saac aan baxay oo habeenimo sababta waa dareemi kartaa abtidoon waa uu maqnaa oo asna wuu baxay sababta u tagayna asaan weydiin doonaa ani abtidoon meel baa iskugu tagnay habeenkii oo dhan mana la soo wicin waa ka maqnaa maalintii mana la soo wicin habeenkii waxaa la soo geliyay muuqaalo ay daawadeen dadka haddana daawanaya qaarkood intii daawatay way garanayaan nidaamyo durdurmidii ka tagay durdurmidii abtidoon ka tagay nidaamii durdur oo saanisaan ahaa haba ahaatee labadaas habeen aan ka maqnaa habeenkaas iyo habeenkii kale maalintii aniga ka maqan oo shaqeysanahay dadkan maalintii kale waxaa la soo wacay durduraa la jabsaday iyadoo la dhahay maxaa isku keenay bixitaankayga jabsiga waqti badan u dhaxay baraad waa shaqeysanaysa aniga waa ka tagay ma fahanti waxaan rabaa umada inaan u cadeeyo aniga inaan ahaan editor ahaan cameraman aniga xasanto baan kala hari jirin YouTube-ka iyo passwordkiisa iyo publisher iyo wixii la dhigayeen hoolahaas aan qabanin hoolahay kala ka badnaa mashquul ba intaas ay ugu filneed ma heli karin waqti kale ma heli karin waqti aan kula sheekaysto dadka faniskayga oo aniga aan hadda jeclaa inaan la sheekaysto la hadlo because aad aan mashquul badnaa laakiin hadda waxa dareemayaa nafis fara badan farxad fara badan waan ka xumahay dhibaatada ku soo gaartay sidii ku soo gaartay walaalo waxa mar kale ku leeyahay nin walaalkay tahay wada shaqeyn iyo wanaag iyo dadaal naga dhaxaysay waa ka tagaa markaa ku dhahay waxaan aniga aaminsanahay inaan YouTube-kaaga iyo passwordkiisa iyo sidii wax u dhaceen adiga aad ka dambayso ma fahanti baraada tartiib umada masaakiinta ha ka waalin dadka yaa laga waalin passwordkaaga waa taqaanaa waxaaga waa taqaanaa dad walba la kaasho si kasta ku samee nidaamii wuxuu ka sheegay hadaa isdheeysi sumcadaadu dila baraada ma dilay sumcadaada ma fahanti mana laga yaabo inaan wax ka sheego because aasha soo wadaagay hal meel aan jiifnay hal meel aan wada joognay hal meel aan ku shaqeysanay dad hadaf iyo hami lahaa laakiin ceeb iyo sumcad xumo inaan ku soo hooyo marnaba laga ma yaabo si kasta la yeelo dad badan ay sheegeen dhaqaale fiican ay sheegeen saas sheegal ila xitaa been abuur sameeyay laakiin ma laga yaabo mana iga suurtoobayso marnaba ina adiga sumcadaada ku dheelo taada hada ku dheelateeda ku dheela ceeb badan aan ku asturay ayaa xasuustaa intana ma ka sheegay ma fahanti ninkii ag fadhiyo waa abtidoon intaan u gudub gelin waxaan rabaa inaan mawduucyo badan halkan ka sheego waxaan u sii gudagalayaa qodobka labaad waxaan raali gelinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dhibaatada iyo beenta loo sheegay nidaamii muxuu aamusnaa iyo dadka leeyihiin waxaan jeclahay aniga hadii dhibaato la soo gaarsiiyo ama eedayn la sameeyo inaan si degan u fikiro maskax degan ayaa wax badan qaban karta xasan toob way soo dacweysay si degdeg leh waxa imaada saldhiga waa bari waxana loo soo wareejiyay howlwadaag waxana loo sheegay inaan wax warbixin la bixin karin ilaa ay dhibaatadan laga xalinayo waxa la hadashay CK oo warbixinad badan ah u sheegtay ha ahadan kuwa luna ha ahadan kuwa beena ma fahanti dad badan oo wareysay si anigana ma hadli kartid aleeyahay maanta halkan waxa u soo fadhiistay intaas waa ina hadli karo umadana wax u sheegi karo وأنت وحنا قبسين كرتيد وآمنسين يا حسن دو ضد بدل أساس وديه جري لكن أنت إن وحنا قبسين كرو أدينا وحنا قلنا قبين جري أجو أمد الصوماليات مركلة وحالي حي وحن بري كنا قنايا جبستا إن عن جبستا دور ميديا إن عن إباتو وجستي mana laga yaabo inaan ku farxo arimahaas waa ka muraa la dilaacanaya waa ka dhibaatoonaya xaaladaas iyo xaalada kale oo ka adag hadii soo wajahdana walaalkay waa hada u tagi waayo
ama wax ka qaban waayo xitaa waxaan leeyahay waa ka xumahay. dad badana isoo wacay kuwaas oo ii sheegeen in Xasan Toob uu iraadinayay baadigoobay dili raw waalidkay wacday nidaamiyay xal xabsi uu saxdaa dhahday saldhiga ku xiray nus saac taa ma xirnaa laakiin balanti waa adkay ani qof balan leh ahli leh nidaamna ah dadka waxa u sheegtaa in durdur media iyo shaqaaleeda quraan la saaro ilaahay hanagu anfaco quraankaasna la saaro ilaahay hanagu anfaco alxamdulillah aan leenahay sharci wax walba diyaar ma shareysanayo waxyaabo badan ma shareysanayo laakiin alxamdulillah leeyahay qofka wuxuu aamino ayuu noqonayaa waxa aaminsanahay wanaag in aan ugu sameynayso ma fahanti wanaagaas ayaa aaminsanahay ilaahay noo aqbalo anagana waxaan ku rajaynaynaa faataxa aan u mareynaa walaalkeen Xasan Toob ummadda Soomaaliyeed ee taawanayso ciddii ka dambeysay in YouTube kaas la jabsaday waxaan u mareynaa faataxo inta ila joogto dadka iyo abdidoon iyo aniga waxaan jeclaanahay inaan faataxaan mar wada aqrino si ilaahay ugu soo celiyo dhibaatadiisa u gaarin walaalkay dadoo ka biishaa sax waay waa ka xumaa wallaah aniga xitaa mushaaraka qaadi jirtay meeshaas laakiin waan ka tagay musiibadaasna kadib ku qabsatay ha igu eedeen ilaaha kula baryayna ilaaha kula karab galo ilaaha ku soo celiyo baraada waxaan ku leeyahay guuleyso aniga nafsadeeda inta ku bixiso la sheegayo ilaaha ka weyn oo amaan iyo nabadgeliyo iyo intaan ba isoo leekaysi alxamdulillah aan leeyahay faataxada umarna marka bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan jeclahay walaalkay faataxadan inuu ilaahay ku aqbalo durdur meediana ilaahay dib uu ku soo celiyo haduu ku soo noqon weydana waxaan diyaar ku lanahay mar kaste inaan garabkaaga taagnaano adigina iyo dhamaan dadkana daawanayo waxaan jeclaan lahayd adiga i daawanayo inaan garabkiisa taagnaato Xasan Toob ani wanaag badan ani sharaf badan shaqo oo naga wada dhaxaysay laakiin maantay in shaqaysanaya ah guuleyso ana waa guuleysanaya brother halkan waa Abaal Media Group channelkan aniga iyo abtidoon ee ku midownay waxaan jeclaan lahayn in daawadayaasha quruxda badan subscribe iyo caawin inagu caawiyaan in subscribe inoo saaraan halkan inaga la socon doonaan waxyaabo badan ma halkan uga soo gudbin doona haduu eeba karaali noqdo taageerayaasheeda walaalada muslimiinta leh waxa marka la sheegayaa inaan dambi iyo dhibaato ku lahayn musiibada ku dhacda durdur media Allah ku soo celiyo والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.